شهر التوبة والغفران مرحبا qof walaalkaaga wiligaaga ha isku dayin inaa xaasidid because waxaa laga yaabaa qofkaas aad maanta xaasidoosid biri inuu meelkaaga soo baxo ama biri aad wax ugu baahatid sembirin waxaa waaye haddaa soomaalinaana anay dhexdeen aan xaasidana inaad dadku ugu xaasisanaana ama qofka kale inuu qofka kale horumarka xasido horta waa la sheegaa laakiin ani ahaanteeda shaqsi ahaanteeda wax gooniya ka dhahay ma lahan laakiin markasto walaalkaaga garab istaag noqo qof yacni qofka kale u asxaama si oo biri ilaahay markasta aad wax ugu baahatid ama qof kale wax ugu baahatid si fudud aad ku heshid soo marka oo wax kasta ilaahay amuurahaaga ama wax kasta aad jeceshaa oo qalbigaaga ku jiro kuugu fududeeyo soo marka insha allah asxaabteeda waxaa idin leeyahay intaan kulmi doono videoga xigo sidaas ina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan asxaabteeda walaalahayga meel kasta dunida ka joogtiin waxaa idin leeyahay ramadaan kariim waa walaalkiin cabdi fataax xoojada isku soo noqoto wanaagsan dhammaan waxaa idin rajeynayaa caafimaad taam iyo cibaado sugan waxaa rajeynayaa ramadaanka inaad ka faa'iidaysateen oo qofba qofka kala xaasidin walaalkiisa u faa'iideeya wax kastoo dhaama insha allah soo tayada kalena markasta waxaa waaye markii la iscaawiyo ay horumar la gaaraa soo maaha soo marka insha allah isla socod wanaagsan waxaa maanta jeclaysta inaan reaction ka bixiyo ama isla daawano video ka hadlaya dadka qurbaha jecel ama markii lasoo baxa yacni ilmaha yaryarka wax loo sheego ama sida wax loogu dhaadhiciyo adi aniga hor dhicin daawasho wanaagsan riwaayad yar wax yar fani ah oo qosol badan oo Swedish la yiraahdo Sweden hawdi interviewgii yaanid ka waayay maalin walba way qaybsinaya waa subcinaysa ilmaha waxaa loo diyaarinayaa interviewga ama sida yacni waxay sheegi lahayn markay Sweden u soo socdaan soo quraanka inta ka dhigeysanaya hawdi waxa weeye waa wixii la weydiinayay ku dhoofiseen hadda garan weydaan maarta waa joogaysa hadda garataan waa tagaysa diyaaradda raacaysa Soma bahal cirka marto oo aydan idinku hore u raacin baa raacaysa hawdi soo waxaan ma marka waxa saaqaynaysaa haduu su'aalaha marka la weydiinayo ha baqbaqina ya waxa weeye waxa tiraadaan فخرنا كشك يا أبو واحد هذا المسجد أوير مركب بين وشيكتي يعني أبرت أما يعني بين وشيكتو حكوا هذا مركب برتيت سيدا بين تلوش شيء أما إني قف كلا بين وشيكان أدين بيرو على وشيكا مركب توكل هذا سوين فخرنا كشك يا أبو واحد هذا صدق وقت مربان قديش حوي مربو سكريه بين عمتي ولا تبعد ولا تبعد ونقدر عشان dameer quraan dhaansin jirno dameerkiina waxa dameer kala oo qooqan baa naga dishay waxa tiraahdaa hal waqti kaliya wax unu jirne dameer hal dameer kaliya lahayn dameerkina dameer kala qooqan aan naga dilnaa yani baahid wax kasto yani baahi kasta sheega waa mifanta si noola wada ama si noola qaato nasabay Yurub soo gashay waxa saaduraysan soo garteen ma ya ayidi daadkii xaabala qaaday iyo mooyiska inay iska ambataan wan weyn meel la raqi ruux meel ay martay waxa salis uu weydiinayo maalmo way qaybsinaya inta ma fahantiin ya maalba in baan fahansinaya imkaarkaas idin joogaysa hadii la yiraahdo marka adhow xagaan dhoofna maar aabiin min diri jiray ma yadha nin fiican buu haadha nin fiican buu haadha hawiye adiga maxaas baatay dulka maxaad oranaysaa may baa oranaysaa hadii reer maleeda duqo wuxuu ka cabsanayaa aabihiin man idili jir markii loo haa inay dhaamogta marka ka hortago uu sameeyo wuxuu taagan yahay aabihiin man idili jir markii loo maya dhaha ilmaha yararka wuxuu weydiinaa xaas ma taa markii loo weydiiyo yani xaas ma qabtaa may leh inuu gaariiska xaas ma qabtaa dhaha kulli buu weydiinay galado bil aqli may leh soma hadeerna ordo waxa weey ordo soo mustacay oo xiisadii lixaad bin bilaabanayna soo degdega markiiba soo dheere كميستيري هالكا عندي ندقي ilmo iskool camal wax loo baro faad orda soo degdega wada waxa rabti soo qabsada soo degdega yani yoon imaada oo xisada lixaad bilaabeyna billahi tallahi maanta dhoof waxa laga waariyaahe xagaad iga hor imanaysaa gurigaaga baan ku soo socday xariif kaloo bacdiisa wata bacd boorso ma la wada talo dhoof iyo waxaan ugu sheegayaa guriga maxaad ka soo doonay ma gurigaaga ina fariis waxa farsan meeyna xagan war aan waan daalanahay wariyaahay waxaan ku yiri inaad arkoori dib waan dhoofeeyaa koori baan dhoofeeyaa jaakadu ku bixi lahaa oo tabal ku qaadan raba xariifka maxaa saaxib ma diyaarsanid
safar baan ugu talagalina ها dhoofka meeloonkii diyaarada la raaci jiray ده هدي لا راعي وايو waxay koorkaan naga soo doonataa كوركن naga soo doonatay diyaar baan oo tagaynaa wareerkiina waa maqnay xaga socota adigu ma anugu Ah. waar gabadhii xasan baan la kaxaynaysaa noo dhib koorka reerkiina ma u maqlay xaggay qabanaysaa alla maxaa doonaysaa xaggaas xitaa ayaan gabadhi xasan baa noodayso xasan dhubuq xasan dhubuq gabadhiisii xasan dhubuq gabadhiisa ninka qabay kaxaysaa ama ehelba ma tiidin taas say ku kaxaysaa war miyuu waalan yahay waar yaahay war gabadha waan garanaya xasan dhubuqna saaxiib baanu nahay kowdhi reerkana anaaba kabiyo canjafiyo wax isu keenkeenay reerka baan dhisay gabadhu ayaan dhaweyd ma tahriibtay dhoofka waxba laga bedelay markaa dhoofkii waxa DNA baa la iska qaadi jiray qof aad dhashay iyo ninka ku qaba iyo waxaas la kaxayn jiray waxay dhoofkan waar dhiigan iyo waxaan ka bax war gabadhu way qortaan kuule whatsappka inooga soo sheegto xataa rasuul wasaaraha Swedish ka u sheegto waxay ku tiri Abdiyaara soo socdaniyo isagoo xiiraniyo xitaa ayaa gabadha waa wada hadalnaayo whatsappka igu soo sheegtay xataa ra-iisul wasaaraha oo Sweden u sheegtay mid waalanta socod baa tayn socod maane adigu maxaad imika waxaad koorka nooga xaganaysaa jilaalkan kaga baxaynaa imid ku sheega hee xayshi miyad meeshan ku socota meel koorna jiilaalka loogu baxo soo doonto inuu ku baxo ninna waxaa waaye dhaxantaas iyo waxaas ugu baxo Sweden ahay haday tahayna oo Sweden adan warkeedaba hayn baa doonaysaa iska tagto miya wasaanan u hayn sawtaalay qorayba maxaa bacdeedii waan haystii war airport ma ka degtay hee saa ma uga degtay airport baahiyaha asaasiga oo dhan baa la daboolaya kowdhi way baahiyaha asaasiga ma digsiba airport safarka ugu degtid baahiyahaaga dhanaa la daboolayo kula baahiyadeeda ma digsiba maxaa laga daboolaya keenaadar waxa waa la daboolayaa markiiba computer yar iyo koodhkan aad ka hadlayso iyo waxba halkaas lagu keenay xitaa meedhan meesha caagadan waa lanaya todobaqaad meedhan meeside war islaamku meedhan lagu qabanayaa baan iimaanka islaamku meedhan lagu qabanayo kula islaamku meedha ha wani weyn baan miyaad saata war waxa waa laga taganiyo hadahan waxay inoo midmadow amar caagadan aad saa isugu hayso xaggana aad iska xoqayso madaas ka iska jaraya gacanta qura lagu meedhanaya ku socotaa habka waa Yurub kowdhi wali ma war kala ku siiyo xasanada ka nasiib maxaa kaga nasiib badan keenaadar Sweden ragga gaagaaban baa laga jecel xasab adaa ka nasiib badan kula Sweden ragga gaagaaban laga jecel yahay oo waa lagu ciyaara صح ميا سويدن أنا إيمانها أنا أحتاج أجابك وكجرا موجود maxaa lagu falaya dee waa lagu ciyaaraa waa lagu ciyaarayaa aad naga tag tiimeed maroodi yar saga keenay maana maroodi yar weeg ha nin aad naga xisho oo imka waa tagaysaaba waa tagaya ha maxaa ku xiray markaa maxaa ku xiiraya waa caruur baan iska dhigay horta ma weeka waxaa la weydiiyey saaxiibka maxaa ku xiiraa la madax maxaa u xiiratay caruura iska dhigay muu ekaa kula iga fiir qash ugu baa waqti caruur ma yeekay imaanka ilaahay ka qaad inaad caydaas ninka ku nac war maxaa awooga yeekaysiye meel 8 tir weekay war uma yeekay awoogiga waqta allah wuxuu soo jiro kula awoogiga waqta maxaa ka wadamiyaan 8 jir weekeen qof 8 sano jir camal wallah iga walaanadu weekeen dagaalada ilaahay ku safro wargaaladu de waxuma aragtay adigu Afrikaan baa tayn dheere gaalada waxba ma aragtay adiga Afrikaan taa oo indha dheer yani oo indha badantiin camal like sida qofka sadadiisa ama wuxuu yahay horaa ka soo qabanaysa ma fahamta ama qiyaasa ku socota like qiyaas ina ku socoto ma aragtaynaade hee imka waa tagaysaa waa tagaya inaad saddex qodob baan kuugu hadalka badan iga daayo inaad koodhi dhiibto iyo inaad lambarka WhatsApp-kaaga ii qorto iyo inaad ducadii safarka ii laqinto حاسدين أكو دقي أتوبحها هبحو سدح أرنا كوي ما الله فات وحاول كور كنا يدي بتت لو لمبرك واتساب كاي خورتيت يسدح محل الدعاء سفر كنا يسي دعيس ورتبا كود halkaas ka dhig kood kood waan tuf kood halkaas kun kood kaaga horeeya xaasisana iimaanka laga qaaday lambarkana waynu kala helaynaa wal horeba ka digla hadli jiray ma kaagiba abti koor xaqo kaaga horeeya maahan meesha wax free ma jiro faat wax kasto lacagtaada ka xigto hal shilin asxaan baabankum heelays iga dhageysay ducada noo wad way rabbi yasir wala tu'asir marka booska diyaaradda soo fadhiisato hee rabbi yasir wala tu'asir safar salaaman oo wati islaamahe war waa yeelka qaadan lacagka waxa la soo diyaaradda marka booska kursiga saas u fadhiisato booska ay fadhiisatid waxa leedahay rabbi yasir wala tu'asir markaas waxa la oo ducada islaamaha waabe الكيد ورد وهي سو هبارين هذا مد الحم باطها إن هذا هي سو هبارين ودوفية هي هيا واي
ilaa ay soo hawaari doonaa waa noo faana marka saaxiibayaal videoga intaasaan ku ekeenaynaa maadaama uu video dheer yahay isku dayi doonaa qayb labaad inaan kasoo sameeyo ilaahay karaal noqdo soo marka dhammaan asxaabteeda waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin fadlan haddaa ku cusub tahay janalkan ama ay tahay marka kugu horeysa daawanaysid waxaa kaa codsanayaa si sharaf leh inaa like share subscribe inta noo saartay wax fariimaan u hesidna commentiga insha allah videoga xiga inta kulmeen waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo waxay laabteeda kale horta waa bil ramadaan maasha allah qofka faa'iideysto ilaahay ajirkeeda ku siiyo teeda kale 10 ugu dambeysa bilaawanaysa faa'iideysana ramadaanka 20 hore hadaa kasoo faa'iideysatay 10 dambe hartay bisha ramadaan dhan waa 30 biri oo 11 bilood dhana soo 11 bilood dhana waxaa cunto soo cunaysay waxaa rabto soo sameynaysay soo marka hal bil aa ka faa'iideysatay khayr kaaga ku jiro dambi dhaafa ku jiro sadaqadaas aad dhiibanaysid ducaa ku faa'iideysaa ajir wax kasta soo marka insha allah inaa ka wada faa'iideysan rajeynayna teeda kale qof walaalkaaga wiligaaga ha isku dayin inaa xaasidid because waxaa laga yaabaa qofkaas aa maanta xaasidoosid biri inuu meelkaaga soo baxo ama biri aa wax ugu baahatid sembirin waxaa waaye haddaa soomaalinaana anay dhexdeen aan xaasdhaana inaad dadku ugu xaasisanaana ama qofka kale inuu qofka kale horumarka xasdo horta waa la sheegaa laakiin ani ahaanteeda shaqsi ahaanteeda wax gooniyaa ka dhahay ma lahan laakiin markasto walaalkaaga garab istaag noqo qof yacni qofka kale u asxaama si oo biri ilaahay markasta aa wax ugu baahatid ama qof kale wax ugu baahatid si fudud aa ku heshid soo marka oo wax kasta ilaahay amuurahaaga ama wax kasta aa jeceshaa oo qalbigaaga ku jiro kuugu fududeeyo soo marka insha allah asxaabteeda waxaa idin leeyahay intaan kulmi doono videoga xigo sidaas iyo nabad رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا